وهاجاك بري وحا وعالم كحصية مالنتا عالمية بوغا يدوريدا حقوق دا فكركا وعنا سنة كي لباد مناسبة داني اي كسو بيغ ميسا يادو اي حرانيهين انت بدن اسكولة دا يقوبها وحبرشادا ودلال بدن وعالم كا سفماركا فيروسكا كورونا درتي haddaba maxay tahay ahmiyadda ay leeyihiin buugaagta iyo in dadku ay wax akhriyaan ama wax qoraan gaar ahaan xilligan lagu jiro xayiraadaha waxa kale oo aynu eegi doonaa caqabadaha dhowridda xuquuqda fikirka qofka waxa barnaamijka caawa nagala qayb galaya Zainab Aadan Sharci oo ah qoraa iyo macallimad iyo Cabdiraxmaan Abtidoon oo isaguna jooga magaaladaasi Oslo labadiinaba soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantiina barnaamijkeedin kala nagala soo qayb gashaan aan ku bilaabo Zainab waxa tahay qoraa waliba buugaagta caruurta ayaad qortaa ahmiyad nooce ah ayay dadkeena gaar ahaan caruurta iyo waalidkaba u leedahay maalintan caalamiga ah ee buugaagta عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أدبان يدين سلام يا دمانتين إنتينا BBC مثلثة إنتا إن الدعوة السبع أهمية دباد وحيوي ديسي أهمية دا أي لا ضحي مثل أهمية دا أي دقصم عليه دولا أهمية دا أي لا ضحي رنتي ومد آد وبلارن وحنا نوغو أرن كاريا إنو يحي أساسي سيدا منتظر يمغانا إنتا قولي يهوي أي أساسي maadaama uu yahay aqoontu ay tahay aasaaska waxbarashada ay aqoontu tahay la aqoonna waxay tahay ba sayfilde laga bilaabi lahaa ayuu akhrisu yahay buugtu aniga xaggayga ahmiyadaas ay leedahay marka laakiin dadkeena aynu u soo dhaadhacno the oral society dad xagga hadalka wax isugu sheega ayaa laynagu tilmaamaa inaynu ahayn marka buugtii waxaad moodaa wax mar dambe soo gaari inay yihiin khaasatan markii farteena la qoray 27kii kadibna burbur ka dambeeyay waxaad moodaa inay dad badan aanay fursad ay wax ku akhristaan aanay helin sababo badan aawadeed aad iyo aad Zainab u mahadsantahay bal aan Cabdiraxmaan u tago Cabdiraxmaan adiga qudhaada cilmi baare ayaa tahay buugaagtana waad qortaa laakiin waxa maalinta biri sidoo kale la xusaya xuquuqda mufakirka oo iyaduna dhibaato ay ka taagan tahay waxaan la yiraahdaa copyright-ka Soomaalida kaalin intee la eg ayay Cabdiraxmaan oo ay ka munaaqashootaa ama qodobka ka hadasha sidiisaba maxamed waad mahadsan tahay bismillaah runtii waa qodob aad iyo aad muhiimadiisa u leh oo doodo badan oo wayadan dambe socda way jireen dadka wax qora iyo sharikadaha wax daabaca intaba ay aad loo qorsheynayay maxaa laga qabtaa arrintan maxaa yeelay mushkilad weyn oo taagan weeye waxaa jira cabashooyin ah dad ama buug sidiisaba dib u daabacday oo ruux kale u lahaa ama qayb ka mid ah buuggii ama suuganta ma aha keliya boogta iyo waxa uu fikirka u lahaa kulleyba qofkaas dad iska daabacda way jiraan marka xaggee dadkaas noocaasoo kaleeta ah looga ashkatooda waa arrin muhiim ah dalalka adduunka horumar oo dhan way leeyihiin meel laga diiwaangeliyo buug walbaba hadhowna cid kale hadday si qaldan u isticmaasho aad mataqaanaa u raacan karto dhulalka Soomaalida haddaad fiiriso waxaa ugu horeeya dalka Djibouti oo barnaamijkaas muddo hore isku howlay guda galay wasaaradda dhaqanka ayaa u xil saaran dad aan u malaynay inay tiradooda badnayn oo Soomaali ah ayaan iska diiwaangeliyay halkaas laakiin su'aashu waxay noqonaysaa markaa ilaa awood intee la eg ayay kula xisaabtami karaan dadkii sida qaldan u isticmaalay waa gartay Zainab aan soo geliyo Zainabay adigu buug ayaad qortay qoray dad badan oo wax qora oo aan la sheekaystayna waxay ii sheegeen in niyad jab ka qabaan inay buug af Soomaali ah ku qoraan marka aad fikirka heshay aad qalin iyo warqad isdul saarayso cabsi intee lag ayaa ka haysa in buuggaaga la iska daabacan doono oo aadan uusan adiga kugu soo noqon doonin والله تاسنا مid meesha ku jirta waana mid dhacdayba runtaadu khatar marka sida Cabdiraxmaan u sheegay wax maartay copyright oo xuquuqda ku dhowraya ama ku toqbanaya ma jiro anigu laakiin man isku werwergelin waayo halka ka duuliyay baa ahayd caruurteena wax qoro waad ogtahay oo markii qurbaha loo qaxay caruurtii Soomaaliyeed afaf kale ba afkii hooyo riixay marka waxaan halkan ka galay wuxuu ahaa caruurta Soomaaliyeed
afka buugaag ay ka baran karaan u qor maadkii ay waxbarashada u fududeyn lahaana u qor marka taqdin caynkaasi iguma jirin waxbaa laga xadayaa ah waayo muhiimadda ka weyn waa gartay aad iyo aad ayaan u fahmay Zainab aan adiga kula joogo baryahan waxaa dhacaysay meelo fara badan oo lagu qabto bandhigyo buugaag marka ma la oran karaa akhriska iyo qoraalka Soomaalida wuu isu soo tarayaa mise waxay uun iska ahaayeen xaflado la iska qabsanay may aad buu isu soo tarayaa waxaan ku sheegi karay in tirada buugta ee soo baxda sanadkii kumanaan buug baa soo baxay ما شاء الله تبارك الله عادي عاد وانا wax lagu farxo oo lagu dhiirado oo lagu doobsado laakiin waxay u baahan yihiin iyaguna waxyaabihii kaabi lahaa dadkii ma aragtay qoraalka tawbaro badan oo qoraalka ku saabsan oo editing ku saabsan oo soo saarid ku saabsan oo sida hal abuurka loo farshaxameyn lahaa artist kaabid badan baa sidoo loo baahan yahay laakiin ma sha Allah guud badan baa soo baxday oo ay malbane waa gartay abtoon cilmi baaris ayaa tahay mar kale aan kugu soo noqdo mar dhaweyd oo aan eegayay bogga UNESCO internetka wax xog ah oo ku saabsan awoodda akhriska iyo qorista Soomaalida ama Soomaaliya laguma hayo maxaa sabab u ah adigase maxaad nagala wadaagi kartaa inta ay la eg tahay maxamed waxaad soo qaaday carwo buugeedyada lagu qabto geyiga Soomaalida min Djibouti ka soo bilow ilaa iyo Kenya iyo inta u dhaxaysaba oo lagu qabtaa sanad walbaba maxay kordhiyeen arrintaas arrin ka muhiimsan jirta aniga aan arko oo ah naadiyada akhriska reading clubs waxa la yiraahdo ee laga furay meel walba oo kamid ah dhulka Soomaalida waxaad arkaysaa dhalinyarada inay iyagu is abaabulaan reading clubs ay samaystaan oo ay mar walba book ay ka munaaqashoodaan haddana aad arkaysaa taas waxay calaamad u tahay in dadkan ay noqdaan in Soomaali isbedel badan ku socdo oo bulsho oo raahayd meesha ay ka ahayd hadda ay tahay mataqaanaa bulsho wax akhrisa inay soo socoto aniga mustaqbalka waxaan leeyahay rajo aad u weyn arrintaas waa gartaa abdoon rajada laakiin maxaa lagu bees garayn karaa haddii iskuuladii ardayda la leeyahay dhalinyarada dadka yaryar iskuulka aadina aad numberkooda u yar yahay haddii Soomaali fara badan ee qurbaha imaado Zainab hadda ay leedahay inaan soo nooleeyaan raba si ay wax ugu qoro Soomaalida faraha badan ee qurbaha tagtay maxaa lagu bees garaynayaa in qoraalka iyo akhriska Soomaalidu ay sii jeclaanayaan waxa lagu bees garaynayaa waxa ugu horeeya sida ay dadku u xiiseeyaan buugfeerada ama carwo buugaagka sanad walbaba la qabto waxay ku tusaysaa naadiyada akhriska siday dadka u xiiseynayaan waxaad arkaysaa qoraayada Soomaaliyeed buug badan ay soo saaraan buugtan lama soo saari lahayn haddii cid akhrista aysan jirin dabcan Soomaalida dhankaas ma wada gelin oo waxaa jira weli waxaa maqan tiro badan maqan oo meesha loo socdo waa meel aad u fog weeye laakiin aan waxaan is leeyahay waxaan ku sheegaynaa maxamed waxay bilowdeen 15 ilaa 18 sano ugu dambeysay waa horumarkan wuxuu bilowday ka hor ma jirin marka xawaaraha uu ku socdo marka aragto waa runta oo ma jiraan daytooyin hay'adaha waaweyn sida UNESCO kale ay sheegayaan inuu kor u kacay laakiin annagii ku dhex jirnay dareen weyn yani aad baan u dareemaynaa in kor u kacaas uu jiro Zainab aan soo geliyo Zainabay caruurta aad adigu wax u qorto sidee ku gaarsiisaa warkaas ma website baa jira oo aad ku gaarsiisaan sidoo kalena ma sameysaan arrintan oo hadda abtidoon ka dhawaajiyay ahayd reading clubska ama naadiya wax lagu akhriyo si caruurta qurbaha joogtay adiga aad target garaynayso aad u ogaato siday wax u akhriyaan imika waqtigan la joogo xadiisan ku suganahay waxaan ka yara daba tegay un cabdiraxmaan baan siyo xoojin su-aashaadii uu ka jawaabayay imika hargeysa waxaa batay oo iyaguna soo kordhay goobihii buugta iibinaysay ee buugshafyada ahaa waxay leeyihiin cafe ku nafan oo iyaguna aad fiirsan kartid buugii xataa intaad adwaalkaa joogaa iska tusan kartid marka taasina waxa weeyaan calaamad kale oo kutusaysa in buugtii ciddii iibsan karaysaana ay iibsanayso dadkii aksanayna inay dee soo badanayaan haddaanay baahidaan jireen
may furmi lahayn waxaa kaloo soo kordhaya madbacdihii baa iyaguna soo kordhaya oo ma garanaysa iyaguna dee dad un bay dee suuq u yihiin tan caruurta haddaan usoo laabto markii aan xagga ingiriiska joogay dhulka ingiriiska joogay maxaan ku dhahdaa buugtayda waxaan ku gaadhsiinayay waxay la socdeen habka maaragtay afka labaad waqtiga ayaa nagu soo koobmaya aad ayaan kaaga mahad celinaya mar kale ayaan munaaqashan doonaa abdoon aadna waa kuu mahad celinaya wahagaag nibiriga inta badan waxaa lagu arkaa meel gaar ah laakiin in sidan daahirka ah loo arko wax dhif iyo naadir ah nibirigan ayaa axaddii soo boqday gacanka Napoli inta badan ma dhacdo xayawaan ka yimaada waqooyiga bari ee Pacifiga inuu yimaado biyaha badda Mediterranean-ka markii ugu dambeysay ee nibiri cawlan lagu arko badda Mediterranean-ka waxa ay sanadkii 2010 xusno warka ugu dambeeyay BBC Soomaali waxaad ka heli kartaan bbc.com/somali inta ayaan ku soo gabagabeynaa barnaamijka caawiya caalamka nabadgelyo